If you're tired of fake news but still crave real stories, then subscribe to Suyal TV now. Welcome to Suyal TV, the people's voice. We're your go-to source for deep analysis and uncensored coverage. Dive into stories that matter to you and your community. Don't settle for the same old headlines. With Suyal TV, you'll get the truth behind the news. From investigative reports to in-depth interviews, we've got it all. So hit that subscribe button and ring the bell icon to stay updated. Share our channel with your friends and help us spread the truth far and wide. Join the Suyal TV family today and never miss a moment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Sooyaal TV iyo barnaamijkeennii maanta oo isniina bisha Mayna ay tahay 12 sanadkuna uu yahay 2025. ku soo dhawaada barnaamijkeennii Sooyaal TV. maanta barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan arrimo badan oo ku saabsan bariga dhexe, gaar ahaan booqashada madaxweynaha Mareykanku uu ku tegayo bariga dhexe, waxyaalaha uu kala kulmi doono isaga oo la sii sheegayo in lacag balaayiin dollar uu ka soo heli doono wadamada khaliijka. Xamas oo ku dhawaaqday inay sii deyn doonto lahayste Israil oo haysta dhalashada Mareykanka. madaxii hore ee siyaasadda Yurub oo sheegay in Israil ay wado xasuuq iyo isirsafayn, taas oo ah midii ugu weyneed ee aynu aragno tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. diyaaradaha dagaalka Israil oo duqeeyay dekado ku yaala dalka Yemen. dhinaca Hindiyana waxaa la sheegayaa in ay dam ama biyo xireen ku yaalay Hindiya ay ooda uga qaadeen ama ay fureen si dhinaca Pakistan ay biyuhu ugu fatahaan, taasoo u muuqata dagaal dhinaca kale ah oo iyana bilowday. arrimahaas iyo arrimo kale ayaynu barnaamijkeena ku maqli doontaan Sooyaal ee daawasho wanaagsan. diyaaradaha Israil ayaa la sheegay inay duqeeyeen dekadaha ay gacanta ku hayaan xoojinta ee Yemen, gaar ahaan Ras Ciisa, Xudayda iyo Asalif fidnimadii Axaddi, sida ay baahiyeen warbaahinta gobolka. dekada shidaalka ee Ras Ciisa ayaa la sheegay inay si gaara loo beegsaday, iyadoo telefishinka Sacuudiga ee Al-Xadiis uu sheegay in ugu yaraan 10 duqeyn laga fuliyay halkaasi. Wayeenka af Carabiga militariga Israil Colonel Ajibe Andre ayaa hore uga digay dadka deegaankaasi inay ka guuraan goobahaasi ilaa mar dambe. sidoo kale warbaahinta dowladda Sacuudiga ee Al-Carabiya ayaa sheegtay in la weeraray xarun ay leedahay Iran, inkastoo goobta saxda aan la shaacin. Al-Xadaas ayaa sheegtay in xaruntaasi ay ku taalo Ras Ciisa. tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xiisadda gobolku ay kor u sii kacayso, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka Gaza uu ku ballaarto gobolka oo dhan. halkaas hay-adda howlaha ganacsiga badaha ee dowladda Britain UKMTO ayaa maanta oo Axada waxa ay shaacisay inay heshay warbixin la xiriirta dhacdo badeed oo shaki leh oo ka dhacday meel 80 mayl u jirta dekada Jabal Ali ee dalka Imaaraadka Carabta. warbixinta ayaa sheegtay doon yar ayaa waxa ay ku dhufatay markab ganacsi oo marayay aagaasi. doonta yareyd ayaa sidoo kale isku dayday inay ku dhacdo markab kale oo halkaa marayay. shaqaalaha doonta ayaa si nabada loogu gudbiyay doon kale. markabkii ganacsiga ayaa joogsaday ama istaagay goobta ay wax ka dhaceen muddo ka hor inta uusan u gudbin dekada xigta ee uu ku socday. waxaa dhacday arrin kale oo ay sheegeen inay ahayd mid yaab leh. markii dambe markabka ayaa helay fariimo raadiyaha loo yaqaano VHF oo ka imanayay cid sheeganaysa inay yihiin mas'uuliyiin maxalli ah, kuwaasoo dalbanayay in markabku uu istaago oo la ogaado in la arko. hay-adda UKMTO waxa ay xaqiijisay in dhammaan shaqaalaha markabka ay nabad qabaan oo caafimaadkoodu uu wanaagsan yahay. waxay sidoo kale ku boorisay dhammaan maraakiibta ku sugan aaggaasi inay feejignaadaan oo ay soo sheegaan haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq shaki leh. dagaalka Hindiya iyo Pakistan ayaa moodaa in uu dhinaca kale isu rogay oo hadda la isu adeegsanayo waxyaalo kale oo dhibaatooyin u geysan kara dadka iyo dhaqaalaha iyo waliba bi'ada.
haddaba warkan wuxuu sheegayaa dowladda hindiya ayaa dhowaan furtay dhowr albaab oo ka mida biyo xireenka baglihaar kaasoo ku yaala webiga Chenab ee gobolka Jammu iyo Kashmir. tani waxay keentay in biyo aad u fara badani ay si toos ah ugu qulqulaan dhanka Pakistan gaar ahaan gobolada ku teesan xadka labada dal. warbaahinta gudaha iyo saraakiisha maamulka deegaanka ee Pakistan ayaa sheegay in laga cabsi qabo fatahaado ka dhaca deegaano dhowr ah oo hoostaga gobolka Punjab iyo Asad Kashmir. halkaas oo webiga Chenab uu marayo waxaa la sheegay in qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaala agagaarka webiga loo diyaariyay barakac degdeg ah iyadoo digniino la siiyay dadka deegaanku si ay uga guuraan goobaha biyuhu ku fatahi karaan. haddaba fatahaadaasi waxaa laga cabsi qabaa in heerka biyuhu oo kor u kaco taasoo burburin karta dalagyada guryaha iyo weliba kaabayaasha kale ee muhiimka ah. tallaabada hindiya ayaa sidoo kale dhalisay dhaleecayn cusub oo ka timid Pakistan iyadoo lagu eedeeyay New Delhi inay si walakaca u siidaysay biyaha iyadoo aan heshiisyo caalami ah lagu gaarin ama lagu soo wargelin arrimahaasi ay hore ugu kacday. inkastoo ay jiraan heshiisyo caalami ah sida Indus Water Treaty oo ay labada dal kala saxiixdeen 1960 ayaa haddana arrintan laga yaabay inay keento xiisado cusub oo diblomaasiyadeed. biyo xireenka Baglihaar wuxuu ku yaalaa webiga Chenab wuxuuna qayb ka yahay dadaalka Hindiya ay ku doonayso inay ka faa'iideysato awoodeeda koronto dhalinta biyaha. biyo xireenkan waxaa hore uga dhacay muran xoogan oo u dhexeeyay New Delhi iyo Islamabad uu ka mid yahay goobaha ay labada wadan si dhow isha ugu hayaan. balaan daawano webiga marka ay biyaha ay ka furayeen albaabada sida uu ahaa. sarnaantaad maqlaysaan waa biyaha guuxooda marka ay Hindiya ay sii daysay biyaha kuna furtay webiga iyada oo cabsi weyn laga qabo in dhinaca Pakistan ay ka dhacaan fatahaado aad u daran. tani waxay daba socotay warbixino hore oo sheegaya in Mareykanku uu si toos ah wada hadal ula yeeshay Xamaas iyadoo uu marayo wakiilka gaarka ah ee Adam Boehler si loo sii daayo lahaystayaasha Mareykanka Israa'iiliyiinta ah. waxaa jira walaac ka jira gudaha Israil oo ah in Mareykanku uu heshiis gaar ah la geli karo Xamaas si loo sii daayo hal ama laba lahayste taasoo keeni karta in Mareykanku uu cadaadis ku saarayo Israil arrimaha bini'aadanimada si ay sheegeen laba mas'uul oo Israa'iiliyiin ah. Israil waxay ku adkeysanaysaa inay qayb ka mid ah heshiis xabad joojin ah oo soconaya toddobaadyo isla markaana ogolaanaya gargaar bini'aadanimo in la geeyo Gaza ay tahay in ugu yaraan 10 lahayste la sii daayo. mas-uuliyiin Israa'iil ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo muujinaya in Xamaas ay ka tanaasulayso dalabkeeda in dagaalka si buuxda loo joojiyo. si kastaba ahaatee wakiilka Mareykanka Steve Witkoff ayaa si qarsoodi ah wada hadallo ula yeeshay Qatar iyo Masar labada wadan oo muhiim u ah dhexdhexaadinta Israa'iil iyo Xamaas. isha ilahaasi ayaa intaa ku diray in labada dhexdhexaadiye ay cadaadis xoogan saareen Xamaas si ay wax uga bedesho mowqifkeeda. mas-uuliyiin Israa'iil ayaa qiyaasaya in Xamaas laga yaabo inay isku daydo inay horumar ka samayso heshiiska lahaystayaasha si ay uga hortagto weerarka ballaaran ee dhulka ah ee Israa'iil ay qorsheynayso inay ka fuliso Gaza. ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa axadii shir gaara oo uu la yeeshay guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ku sheegay in uusan meesha ka saarayn suurtagalnimada in Xamaas ay sii dayso muwaadin Israa'iili Maraykana oo lagu magacaabo Idan al-Iskandar kaasoo lagu hayo Gaza. mas-uuliyiin Falastiiniyiin ah oo xogogaal u ah wadaxaajoojyada ayaa u sheegay Reuters in Xamaas ay si toos ah ula hadlayso maamulka Mareykanka si looga wada hadlo xabad joojin ka dhaqan gasha Gaza iyo ogolaanshaha gargaar bini'aadanimo. ururka Xamaas ayaa axadii ku dhawaaqay inuu sii dayn doono Idan al-Iskandar askari Israa'iili ah oo haysta dhalashada Mareykanka kaasoo lagu haystay afduub tan iyo weerarkii 7 Oktoobar. ila xogogaal ayaa sidoo kale sheegay in la filayo sii daynta al-Iskandar inay dhici karto 48 saac ee soo socda.
xafiiska ra'iisul wasaaraha Israil ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay u sheegtay Israil in ururka Xamas uu muujiyay rabitaan uu ku siidaynayo Idan al-Iskandar oo ah muwaadin Mareykana si ay ugu muujiso ujeedo wanaagsan Mareykanka sida lagu sheegay warkaasi deyntan ayaa noqon doonta iyadoo wax magdhow ah ama shuruudo ah lagu xirin siidayntaasi ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff ayaa dhawaan la kulmay qoysaska lahaystayaasha lagu hayo Gaza isagoo oo u sheegay inuu ka soo horjeedo habka Israa'iil ay u wajahday dagaalka Gaza ayna muhiim tahay in la gaaro xabad joojin cusub iyo heshiis lagu sii deynayo lahaystayaasha sida uu ku waramay janaalka 12aad ee Israa'iil Witkoff wuxuu u sheegay qoysaska in Mareykanku doonayo in la soo celiyo lahaystayaasha balse Israa'iil diyaar uma aha inay dagaalka joojiso wuxuu sidoo kale yiri Israa'iil waxay dagaalka sii dheereynaysaa in kasta oo aan arkayno inaysan jirin wax horumar ah oo dheeri ah oo la gaari karo sidii lagu sheegay warbixinta hadalkan ayaa ah mid aan hore looga baran Witkoff isaga oo si cad u dhaleeceeyay siyaasadda dowladda Israa'iil wuxuu sidoo kale sheegay hadda waxaa jirta fursad waxaan rajaynaynaa in Israa'iil iyo dhammaan dhexdhexaadiyaashu ay ka faa'iideysan doonaan waxaan culays saaraynaa dhammaan dhinacyada si aan u soo celino lahaystayaasha madaxii hore ee guddiga siyaasadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa jimcihii ka sheegay goob uu ku gadoomayay abaalmarinta Charles V. European Award hadallo ay ku jireen eedeymo culus oo ku saabsan barakicinta iyo xasuuqa Israa'iil ee ka wada Gaza Borrell ayaa si kulul u dhaleeceeyay waxa uu ku tilmaamay qorshaha Israa'iil ee ku sifaynta Gaza si ay ugu bedesho goob dalxiis waxaan markhaati u nahay dagaal isirsifayn qowmiyadeed kii ugu weynaa tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka ujeedadiisuna tahay in Gaza laga dhigo meel loo tumasho tago marka malaayiinta Falastiiniyiinta ay noqdaan kuwa dhinta ama la qaxiyo ayuu yiri Borrell waxa uu sidoo kale sheegay in waxyaabaha qarxa ee lagu daadiyay Gaza ay 3 jeer ka xoog badan yihiin bamkii nuclear-ka ahaa ee lagu dhuftay Hiroshima intuu xilka hayay Borrell waxaa si weyn loogu yaqiinay dhaleecaynta ku aadan siyaasadda Israa'iil ee reer Falastiin si kastaba ahaatee waxa uu abaalmarintan Charles V lagu guddoonsiiyey dadaalkiisii muddada dheer ee uu u galay nabadda dimuqraadiyadda qiyamka Yurub iyo kaalintii uu ka qaatay xoojinta doorka midowda Yurub ee caalamka gaar ahaan waqtiyadii xasaasiga ahaa ee uu soo maray midowgaasi marka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka degayo magaalada Riyadh talaadada waxaa lagu soo dhaweyn doonaa xaflado heer sare ah qasriyo dahab ah iyo ballanqaadyo maalgashi oo gaaraya ilaa iyo trillion si kastaba ahaatee dagaalka ka socda Gaza ayaa ka hor istaagay hal yool oo uu muddo dheer doonayay oo ahayd caadiyeynta xiriirka Sacuudiga iyo Israa'iil Saudi Arabia waxay rabtaa damaanad amni oo rasmi ah oo ka timaada Mareykanka iyadoo sidoo kale doonaysa inay horumariso barnaamijkeeda nuclear-ka rayidka ah Riyadh sidoo kale waxa ay ballan qaaday maalgelin balaayiin ah oo ay ku sameynayso gudaha Mareykanka dalka Imaaraadka Carabtu waxa uu hiigsanayaa in uu noqdo hormuudka caalamka ee sirdoonka macmalka ah ee artificial intelligence-ga isagoo diyaarinaya qorshe ah 1.4 trilyan ah oo lagu horumarinayo teknolojiyada iyo warshadaha casriga ah waxaa la filayaa in Trump uu meesha ka saaro xayiraadda Biden ee artificial intelligence-ga inta uu joogo Abu Dhabi dalka Qatar oo ah dalka khaliijka ugu xiriirka dhow Mareykanka dhinaca amniga waxa ay rabtaa si adkeynta wado shaqaynta military iyo in Mareykanku uu ka qaado cunaqabataynta ka saaran dowladda cusub ee Syria sidoo kale waxa ay danaynaysaa inay sii ahaato dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ee khilaafaadka gobolka sida Gaza iyo Afghanistan ila xogogaala oo ka tirsan dalalka khaliijka iyo saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Mareykanku ay si hoose u cadaadinayaan Israa'iil si ay u ogolaato xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda Gaza taas oo ah mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee boqortooyada Sacuudiga ay u dhigtay haddii la doonayo in dib loo bilaabo wada hadallada ku saabsan xiriirka caadiga ah ee Israa'iil iyo Sacuudiga ergeyga Trump ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa toddobaadkan ka sheegay munaasabad ka dhacday safaaradda Israa'iil ee Washington inuu filayo horumar dhowaan laga gaaro ballaarinta heshiisyada Abraham Accord
waa heshiisyadii uu Trump hormuudka ka ahaa intii uu xilka hayay oo ay wadamo carbeed sida isu taga Imaaraadka Carabta, Bahrain, Sudan iyo Morocco ay ku aqoonsadeen Israil. Witkoff ayaa yiri waxaan aaminsanahay in dhowaan aan heli doono warar cusub oo horumar kuwaas oo aan rajaynayno inay miro dhalaan sanadka dambe, isagoo u muuqday mid muujinaya kalsoonida in wadamo kale oo carbeed ay aqbali karaan inay xiriir caadi ah ay la yeeshaan Israil. Witkoff ayaa la filayaa inuu raaco Donald Trump inta uu ku guda jiro safarkiisa la filayo Bariga Dhexe. Sacuudiga oo aan weli si rasmi ah u aqoonsan Israil ayaa macnaheedu tahay in labada awood dhaqaale iyo ciidan ee ugu weyn Bariga Dhexe aanay weli lahayn xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa. dadka taageersan caadiyeynta xiriirka ayaa rumaysan inay keeni karto xasilooni iyo barwaaqo gobolka ah, iyadoo sidoo kale in laga hortago saameynta sii kordhaysa ee Iran. samaynta xiriir rasmi ah oo u dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo Israil ayaa noqotay arrin aad xasaasi u ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israil ee ku qaaday Gaza. boqortooyada Sacuudiga oo ah meesha uu islaamku ka soo farcamay waxa ay wajahaysaa cadaadis weyn oo gudaha iyo dibaddaba ah, taasoo ka dhigaysa xiriir kasta oo ay la yeelato Israil mid si weyn loo dhaliilo. dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman waxa uu u baahan yahay in dagaalka Gaza uu dhamaado isla markaana la helo wado la isku halayn karo oo lagu gaaro dowlad Falastiiniyiin ah ka hor inta uusan dib ugu laaban arrinta caadiyeynta xiriirka la leh Israil, sida uu sheegay Dennis Ross oo hore u ahaa dhexdhexaadiye Mareykan. ilaa iyo inta xaaladaasi laga gaarayo Mareykanka iyo Sacuudigu waxay diiradda saari doonaan booqashada Mareykanka ee Trump, arrimo dhaqaale iyo kuwa goboleed oo muhiim ah. labada dhinac waxa ay tilmaameen in maalgelino waaweyn ay miiska saaran yihiin, sida heshiisyo hub ah, mashaariic waaweyn oo iskaashi oo ku saabsan sirdoonka macmalka ah. dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa doonaya inuu ka fogaado muranka ku saabsan caadiyeynta xiriirka la leh Israil, isagoo oo shuruud ka dhigay dhamaadka dagaalka Gaza iyo wado lagu gaaro dowlad Falastiiniya. arrintan aad u qoto dheer oo saameysay qorshihii Mareykanka ee xiriirka diblomaasiyadeed ee gobolka, waxaana la sheegay in booqashada madaxweyne Donald Trump ee lagu wado inuu ku tago Riyadh ay diiradda saarayso maalgelin ballaaran oo dhan 1 trilyan oo lagu samayn doono shirkado Mareykan. haddaba booqashada Trump iyo Sacuudiga waxa ay u muuqataa mid looga dan leeyahay in la dhiso is-afgarad dhaqaale oo culus iyo iskaashi amni, iyadoo laga fogaanayo qodobada muranka leh sida caadiyeynta xiriirka Israil iyo Riyadh. iyo Washington waxa ay doonayaan inay kasbadaan midba midka kale, midna maalgelin, midna saameyn istiraatiiji ah. hadiyada laga yaabo inay noqoto tii ugu qaalisanayd ee abi dowlad shisheeye ay siiso dowladda Mareykanka ayaa maamulka Trump la sheegay inuu diyaar u yahay inuu aqbalo diyaarad nooca raaxada ah ee Boeing 747-8 taasoo laga leeyahay qoyska boqortooyada Qatar, sida uu u sheegay ila wareedyo la hadlay ABC News. diyaaradan oo loo bixiyay qasriga duulaya sababo la xiriira heerka raaxada ee lagu dhisay ayaa la filayaa in loo isticmaalo sidii Air Force One. diyaaradan madaxweynaha Mareykanka ilaa waqtiga uu Trump ka tegayo xafiiska, markaas kadib diyaaradan waxaa lagu wareejin doonaa maktabadda madaxweyne Donald Trump. sida la sheegay, Trump ayaa horaantii bishii Febraayo booqday diyaaradan oo lagu hayay West Palm Beach International Airport, halkaasi oo uu ku kormeeray qalabkeeda cusub iyo tiknoolajiyada lagu xardhay. waxaa la filayaa in hadiyada si rasmi ah loo shaaciyo toddobaadka soo socda marka uu Trump booqdo Qatar. shaki iyo dood sharci ayaa ka dhalan karta arrintan, iyada oo dad badan ay isweydiin doonaan inay sharcigu u ogolaanayo maamulka Mareykanka inuu aqbalo hadiyad noocan oo ka timid dowlad shisheeye iyo in la marsiin karo diyaaradan maktabadda Trump. si looga hortago su'aalaha ila wareedyo ayaa ABC News u sheegay in xeer ilaalinta madaxtooyada iyo waaxda cadaaladda ay diyaariyeen falanqeyn sharci oo ay u gudbiyeen xogeyaha difaaca ee Mareykanka Pete Hegseth, taas oo ay ku sheegeen inay sharci tahay in Pentagonku uu ka aqbalo diyaaradda ayna markaas u wareejiyaan maktabadda Trump ka hor inta uusan xilka ka tegin. xeer ilaalyaha guud ee Pam Bondi
iyo la taliyaha sare ee Trump David Warrington ayaa la sheegay inay soo saareen go'aan sharci oo dhigayay in hadiyadda diyaaradda la aqbali karo iyada oo shardi laga dhigay in marka uu Trump xafiiska ka tago loo wareejiyo maktabadiisa. Safaaradda Qatar iyo madaxtooyada Mareykanka ilaa hadda kama aysan jawaabin codsiyada warbaahintu ee arrinta ku saabsan. Diyaaraddan ayaa markii hore loo wareejin doonaa ciidanka cirka Mareykanka US Air Force halkaas oo lagu samayn doono wax ka bedel lagu waafajinayo shuruuda military ee lagu qaado madaxweynaha Mareykanka. Sida ay sheegeen halkaas aanay faahfaahiyo waa shuruucda military ee loogu talagalay diyaarad lagu qaadayo madaxweynaha Mareykanka sida ay sheegeen ila xogogaala oo la hadlay ABC. kadib markii la isticmaalo muddo cayiman diyaaradda nooca Boeing 747-8 oo hore u jirtay 13 sano waxaa la filayaa in loo wareejiyo ciidanka cirka lana geeyo hay-adda maktabadda madaxweynaha Trump. wax kasta oo la xiriira kharajaadka ku baxaya wareejinta diyaaradda waxaa dabooli doonaa ciidanka cirka Mareykanka sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo. sida ay sheegeen khubarada ku xeel dheer duulimaadka qiimaha la qiyaasay ee diyaaraddan uu Trump heli doono ayaa gaaraya ku dhawaad 400 milyan taasoo aan lagu darin qalabka amniga isgaarsiinta ee sare ee ay khasab tahay in lagu rakibo si diyaaradda loogu qalabeeyo qaadista madaxweynaha Mareykanka si amni ah. shirkadda L3 Harris oo hore loo qoondeeyay ayaa durba bilowday hawsha wax ka bedelka diyaaradda si loo waafajiyo shuruudaha diyaaradda madaxweynaha sida markii hore uu soo sheegay Wall Street Journal. aqalka cad iyo waaxda cadaaladda Mareykanka waxa ay ku heshiiyeen in hadiyadan diyaaradda ah aysan noqon mid sharci jebin ah maadaama aysan ku xirnayn wax ficil rasmi ah oo dowladda laga rabo taasoo meesha ka saaraysa tuunka musuqmaasuq. qoraal sharciyeed oo ay diyaariyeen Van Bondi ayaa sidoo kale sheegay in hadiyadan aysan jebinayn dastuurka Mareykanka ee mamnuucaya hadiyado laga helo dowladda shisheeye maadaama diyaaraddan si toosa loo siinayo ciidanka cirka Mareykanka aakhirkana lagu wareejin doono hay-adda maktabadda madaxweyne Trump. diyaaraddan cusub ayaa lagu bedelayaa labada diyaaradood ee duqoobay ee hadda loo adeegsado Air Force One kuwaas oo la isticmaalayay tan iyo 1990. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii maanta waa Sooyaal TV iyo Cabdirashiid Geele iyo waliba bahda Sooyaal TV oo idin leeyahay isma dhaafno.